السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحاب قارقة ما أنت وحويان كل إن بدن بدي قبرتها هركيسة البيت كذا إن قال إذا كصوت وطوبنو ما أنت واحد سكتش على استي إن وصاك عنا بريقة قارحان وحي يعني إذا قبضتين قارب بورتانا صاحب الله شو كسر kuwani waxa weeye waa caruur yar oo aad iskaga faraxsan really markaan arko caruur aad iskaga faraxsan aniga lafteedu waxaan jecelahay la socdo insha Allah walaal baan u jecelahay inaanu meel xiiso leh oo qurquruxdooda leh oo dadkeena runtii ay jeclaan lahaayeen inay mar wada si fiican u daawadaan inaan u soo tabino aad iyo aad marka daliya dibad waxaan uga khayr roonta marka dalkeena hor dadkii barno oo markaynu dadkii dalka barno ayaynu insha Allah meel kale waafiyo qurux badan ay tagi doonaa aad iyo aad laakiin maanta bal magaalada Hargeysa istiraatiijiyadeeda oo kale buuraa ku weegaarsan buuraa ku hareeraysan waliba xaggan koonfurta iyo bariga ka xigta taasina waxay sheegaysaa inay meel istiraatiijiye ku taalo aad iyo aad haday dagaal xitaa lafteedu ay yimaadaan marka qaar Facebook noqon kartaayo waa meel istiraatiijiye marka xilligii la doorayay marka waxaan filayaa inay qayb ka ahayd qiyaastii Ingiriisku haday dagaal dhacaan oo kale inuu صح halkan sababta loo magaalay inkastoo ka horeysay aad iyo aad oo meelada waa la yiraahdo biyo mareena oo dooxya mara buura hareeraha ka mara waa meel markaa istiraatiijiyadeeda marka horeba dadkii degay ee ugu horeeyay Soomaalida ahaa sabab ay u degeen ay ahayd inay beeraha ku fiican tahay beeraleyna ay ahaayeen daaqsimeedna ay iska ahayd sidoo kalena ay biyo ka helayeen oo biyo ka dhow yihiin maadaama dooxya leedahay إن شاء الله فلو قرح بدن بنقطن دونا إلا بورتين كتجينه ويدي سوى دونا إن شاء الله صاحبي المركل عاد بندي سلامية كل أنا جو جدك كوسي جرنا مركها بورتان أصحاب لطو حنو كان أنك كونفر مركها وتدي أنا جو صاحي نوحان هل كان كوارقنا يصير مقطع ضفار ولا كوحة يا مش هسوي تاجن بلادك سؤال وقت ما كنت بيصير ضفار دركته أنا هان هتيان كهذا وقت هراء يقدم بيسي إن أنا مدة فيديو أما مقرنا ساي صور كيس ملاه وأركو أكله لكن أركتي بري هراء يقدم بيسي مسؤولين هطبا وحوي أجارك إيو ماركتي بورتانا صاحبلود حيوانات بدن باكنول سدا ضفار كاس إيو ماركتي كل حيوان كلا أو بدن مركزي نقص صعدا ومقال كذا أركي طنطان مركب وحوي استقرا مهما هو صح استضاف ضفار كانوا هذه الشهر مهما هو تداهلا maxay ahayd doofaarku ma daahiro hadii uu daahirana markaas ma noqdeen xalaal bay hadban filayaa marka kulli waxa jira inta badan doofaarada iyo daanyeerka iyo waxa intooda badan laga helaa waxa weeyaan agaarka buuraha buur kastaba hadaad gaadho lagama waayo maaragtay حيوانات كلا ضفارك استدانيرك دعوة كل واحد صار دبا ماشي ونكو أرجنا قاركود مقالك صوص عضتكو أركضون إن شاء الله بركة للصعدة آديات بوماتين
saaxiibayaal halkaa waxaa idinka muuqdaa dacwooyin aad badan oo maaragtay markaasi gudaafada ka dhex fadhiisanaya. sidoo kale halkan waa goob kale oo qashinku ku badan yahay. goobaha qashinku ku badan yihiin aad bay ugu badan yihiin markaa sida doofaarada, daanyeerada, xayawaanada, xataa shimbiraha ay ka mid yihiin haadka ay nooc. waxa weeyaan waa goob aad ay ugu wada dhan yihiin ma kala cabsanayo kolley way ka wada markaasi buudanayaan meesha. asxaabta qaaliga ugu dambeyn waxaan soo gaarnay buurtii Naasa Hablood oo adiga arkaya mid waa taas midda kalena masaafo aad ka yar fog u jirtaa oo aad halkaa ka soo muuqata oo haddii imika aan israacno taa kalena taga waqti bay qaadanaysaa. midda kale xataa tan waxaan isku dayaynaa inaan korno inkastoo waxaan ku uri gobolku iska sii dhow yahay laakiin tan markii la korayo waxa laga yaabaa inay waqti qaadato oo ku sii rafano laga yaabaa inaan dhexda ka soo noqono. teeda kale bal waxaan isku dayin doonaa markaa labada buur tan baan isku dayi doonaa inaan dhanka sare ka korno insha Allah. bal markaas aan isla soconno ledas goyno marsha markaas. saaxiibayaal weli waxaan ku guda jiraa inaan buurti fuulo. buurti waa taas halkaana Axmed Daawud baa sii socda oo isaguna muuqaal duubanaya. haddaba buurta Naasa Hablood waxa weeyaan horta sababta loogu bixiyo wax kale maaha qof markuu magaalada joogo labada buurood waxay u soo muuqdaan dee sidii ma garanaysaa dee maaragtay naasaha oo kale ay u soo muuqdaan. marka buurtan mid waa tan oo imika wanaga sii korin insha Allah oo masaafo dheer marka la korayo dee waqti bay qaadanaysaa. tii kalena waa halkaa ka muuqata waa taas hayay waxa weeye waa galab wadadii waa taas magaaladii ama caasimadda way toos u galaysaa. aad bay nooga fogtay magaaladii wallahi wani meeshii baan anigu u dhaweyn baan xiiqay. saaxiibayaal markaa halkaa imika idin muuqataa biyuhu ay ka muuqdaan waa halkii aan ka soo galnay buurta. sidoo kalena waxa weeye waa koonfurta buurta Naasa Hablood weeyi waana halkii aan ka soo galnay. waxa weeyaan waana halkii aad ku aragteen xayawaanadii aan hore u soo aragnay sida doofaarka, dacwada ay nooc waayo qashin iyo biyo ay nooc meesha isku dhex ayaa isdhex yaala. kulley meesha maaragtay qashinka iyo gudaafada lagu soo rogo waxa weeye waa meesha xayawaanaadka aadka ugu badan markaasi ay isku yimaadaan siiba dacwada aad looga helaa maadaama meesha ka la fadhiisanayso oo ay cunayso sida lafaha meelaha lagu soo tuuray iyaga laftooduba laga yaabaa inay neef meelaha ka soo qaataan deetan meesha la yimaadaan. marka waxa weeye goobtaasi waa goob mucjisadeeda wadata waxa weeyaan qofku markuu halkaas soo gaadho cabsi badan buu dareemayaa mararka qaar wuxuu soo dhanayaaba xataa mararka qaar waxa laga yaabaa qofkaasi inuu caafimaadkiisa ka shaqeyso wallahi xataa oo tal u qaatay. saaxiibayaal markaasi bal muuqaal ya axbeyaal waa kuwa daanyeeradu odaga arko faraha badan la meesha jooga wareede ninkii iga horreeyay waa ka fadhiya xagga soo taagan wax tuumanaya. buurtan sababta ugu weyn u kori lahay waxa weeyaan daanyeeraha meesha ka buuxa ma garateen. marka waxa weeyaan ninkaasaan iyo qeyrkay qoomahay bay iga reebay daanyeerada waa iska cili lahaa. imika waxaan iga haysaa ma kortaa meeshan iyo wixii dhacaya waa dhacay. midda kale Axmed halkaas waxaas ma waxa waraaba wallahi waraaba iyo bilaahi talaa meelkiin halkaa wadada waxa maraya eegag dhinaca wadada dhankeeda shaab. asxaabta qaaliga ugu dambeyn meesha waa soo fuulay labadii buurood ee sheegay mid ahaan baan hadda fuushahay ma sha Allah. wallahi saddexdii wixii ka dambeeyay horta jawigeed aad u qurux badan yahay halkan ilaa ugu dambeyn buurta Naasa Hablood in badan dhageyda ku soo dhici jirtay hadda waan dul taaganahay. qaybtii kalena waa halkaa ka muuqata kul noqoto hadii alla ka dhigo insha Allah. laakiin buurta aad in badan dhageyda ku maqli jirtay waa tan qaybna waan dul saaranahay qaybtii kalena halkaas ka soo jeedaa. marka muuqaalka kulli waa iska soo gabagabeynaa waa iska waxa weeyaan shantii iyo barkii waqti de meel la sii taagnaado ma halkani oo waxa weeyaan xayawaanada meesha uga dareerayna hadii kale waa la isku laynaya wallahi ama mata anaga nooc kala bay idin iman karnaa ma garatay. marka asxaabta qaaliga aad baan idin jecelahay fiidiyogan hadduu ku soo gaadho like ku qabo mayga
شاكت شوفني ما شاء الله شفكي سيو شق مدار دوشي سيو شيدي يا ناسيو شق نوربا رايسيو شعبكي هرقيسو شن هبين عركي